London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have wanaagsan waa la wada wadaagay noloshan intaasay ku dhisan tahay aniga waxba naqaan adigadan aan aqoon 15 years old and older, and I'm using that as an age because Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo asagu special caawa ahaana doona insha Allah ta'ala barnaamij bil walba 20keeda ilaa 25keeda mar aad daawataan kana daawataan TV-ga Universal xaruntiisa dhexe magaalada London. barnaamijkan arrimaha bulshada special aan ugu magac darnay ayaanu waxaanu ku qaadaa dhigaynaa bil walba insha Allah ta'ala waxyaalaha aanu isleenahay dadka Soomaaliyeed way daneynayaan ama danta guud ayaa ku jirta daba kan caawa ayaanu waxaanu jecelnahay inaanu ku eegno mawduuca su'aasha aanu kaga doodeyno ayaa wax su'aalaha kaga doodeyno waxa kamid ah maxaa u diidan ururka al-shabaab inay qaataan nabadda oo dalkeena iyo dadkeena iyo diinteenuba aanu ku noolaano kulligeen bardan wa salaaman ciideeni hooyo maxaa hortaagan ururka al-shabaab inay nabadda qaataan haddaba su'aashaas iyo su'aalo kale oo la halmaala ayaanu jecelnahay inaanu ku qaadaa dhigno su'aalahuna aad bay u fara badan yihiin waxa kale oo kamid ah ma diin iyo caqiide ay rumaysan yihiin baa u diideysa ma waxa u diideysa xukun ay rabaan ayagu dadka inay xukumaan ma waxay diidayaan ciidamada qalaad ee dhulka hooye ku sugan iyo waxyaalaha la midka waxaa kaloo isweydiin loonu barnaamijka qaybtiisa dhexe ku arki doontaan inaanu weydiin doono dadweynaha Soomaaliyeed culamaa u diin iyo waliba siyaasiyiin Soomaali oo caawa barnaamijka nagala qayb galaysa Soomaaliya oo al-shabaab u taliso sidee bay u egtahay oo aanan lahayn wasiir arrimaha dibadda oo aanan lahayn safaarad arrimaha dibadda ah oo albaabadoo dhan ay xiran yihiin macnaheedu marnaba ma ahan diinta islaamka haddaad haysatiin oo albaab walba soo xirmayo diinta islaamka oo la qabsado muxammedur rasuulullah lagu xirmo iyo caqiidada saxiixa ayay adduun iyo aakhiraba guul lagu gaaraa barnaamijkan waxa caawa igala qayb qaadanaya madaxa guud ee culamaa u diinka Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Ahmed Salaad oo asagu markaanu interviewga la yeelanay ku sugnaa magaalada Garowe waxa nagala qayb qaadanaya oo kale hadii Allahu jalla jalaaluhu yiraahdo Sheikh Maxamed Idriis waxa kaloo nagala qayb qaadanaya oo aanu sugeynaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo Sheikh Bashiir Shiil Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo Nairobi ku sugan Sheikh Maxamed Ibrahim Shakuul oo asaguna Nairobi ku sugan culamaa diinka ayaa nagala qayb galaya dhinaca siyaasiyiintana waxa nagala qayb galaya hadii Allahu jalla jalaaluhu uu yiraahdo wasiir ku xigeenka gaashaandhiga Cabdiraxmaan Dheer oo asagu ku sugan magaalada Muqdisho caawa waxaan kaloo rajaynaynaa sidoo kale nagala qayb qaato hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo Cabdikariin oo asagu ah laftigiisu wasiirka arrimaha gudaha ee qaranka Soomaaliya aanu war ka sugeynay insha Allah ta'ala waxa kaloo nagala qayb qaadanaya wasiirka warfaafinta ee Puntland Mr. Maxamuud Caydiid daba inta ay kala oo fara badan ayaanu rajaynaynaa inaanu fursad u siino khadka telefoonka aaladda Skype-ka iyo waliba Facebook oo nagala soo xiriiri doontaan aadna ka arki doontaan inay hoos ku qoran yihiin ama ay soo qormi doonaan dhawaan oo ra'yigiina iyo fikradiina aad ku soo gudbin doontaan sidoo kale wararka waxay qaarkood ka imaanayaan barnaamijyada magaalada Cape Town oo ku sugan yahay wariye deeq darajo iyo culamaa u diin Soomaaliyeed iyo waliba dad businessman oo ayaguna nagala qayb qaadan doona daba barnaamijkaas ayaanu waxaanu jecelnahay inaad nala daawataan khadka telefoonka nagala qayb qaadataan iyo emailka ay dar xafiil oo dhawaan shaashada uu ku soo qori doono farsamo yaqaankeena Axmed Daare haddaba waxaan jecelahay warbixintii ugu dambeysay oo barnaamijkan uu la yeeshay Sheikh Umal shalay oo jamco ahayd inaanu ku bilowno barnaamijkaas oo qayb koobaad iyo qayb labaad leh bal marka horeysa aan ku bilaabo Sheikh Umal iyo magaalada Nairobi Sheikh Umal adiga la waaye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سؤاشا كسابسا سامي علماء iyo dawladdu wada shaqeyn karaan waxa asaas u ah runtii asal ahaan waa labada
haddii ay hagaagaanna ummaddu hagaagto, hadday hallaabaan ama wax ka hallowdana ama wax ka hallaabaanna ay runtii dhibaatadeedu ay dalka iyo dadkaba gaadhayso, waa madaxda iyo culimada. waana labada qole ee alla tabaaraka wa tacaala uu qur-aanka ee daacadooda iyo hadalkooda iyo warkooda in la yeelo uu amray. yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuula wa uli lamri minkum. ulil amrigaasi siday culimadii salafka ay ku fasirayaan waa al-umaraa'u waalculamaa, waa madaxda iyo culimada. marka waatay culimmadu dhihi jireen hadday hagaagaanna ummaddu waa hagaagtaa, hadday hallaabaanna ummadda dhib badan baa ka soo gaadha. iyaga wada shaqayntoodu waxay ku xidhan tahay runtii mid walba waajib baa saaran, mas-uuliyad baana saaran inuu mas-uuliyaddiisa guto. waa midda kale nidaamka iyo dowladdu masaalixda uu u taagan yahay iyo nabadgelyada uu u taagan yahay iyo cadaaladda uu u taagan yahay iyo waxa uu ka shaqaynayo haddaynan ahayn wax ku salaysan ilaahay sharcigiisa tabaaraka wa tacaala oo diin rabbi ku salaysan, waxaa imaanaya runtii oo meesha ka dhalanaya nooc kala fogaansho ah oo culimadii iyo nidaamkii dowladeed ee dhisnaa ka imaanaya. waxaa yeele ninka culimada ah wuxuu matalayaa ilaahay sharcigiisii tabaaraka wa tacaala iyo diintii buu xambaarsan yahay. haddii madaxda iyo nidaamku qalloocdo oo shareecadii garab maro, way dhici kartaa inay meelaha qaarkood ama jawaanibta qaarkood oo aan markaa shareecada aan ka hor imaanaynin ama danaha ummadaba ah inay iska kaashadaan way suroobi kartaa. laakiin iskaashiga rasmiga ah iyo waxqabadka rasmiga ah wuxuu ku imaan karaa in nidaamka iyo dowladda jirtaay ay ilaahay sharcigiisa tabaaraka wa tacaala qaadato, diinta dhaqan geliso, cadaaladda iyo maxkamadaha iyo dowladda nidaamka dhammaantii inuu noqdo mid ku socda ilaahay tabaaraka wa tacaala diintuu soo dejiyey. markaas ayay laasim ku noqonaysaa cid walba inay garab istaagto oo ay ugu horrayso dadka garab istaagaya culimmadu, oo ay ummadda ku xidhaan, oo ay waajib noqonaysaa muxuu ahaayey daacadoodu ay laasim noqonaysaa. sidaasaa iskaashi marka buuxa uu ku dhex mari karaa culimmada iyo wixii nidaam ahee markaa ummaddu ay leedahay u dhisan, ama dowlad ha noqdo ama madax sare ha noqoto ama madax ka hooseysa ha noqoto. laakiin inta qodobkaasi meesha ka maqan yahay oo shareeco rabbi tabaaraka wa tacaala iyo diintiisii ah, si buuxda runtii ninka culimmada ihi isaguma dhex tuuri karo wax isaguba iyo nidaam isaguba dee ilaahay diinkiisii ka leexday. ma sahlana inuu muxuu ahaa isagoo dhan uu si buuxda uu isu siiyo ama u garab istaago. waa wax iska adag weeye, bal waxaa waajiba markaa isaga in muxuu ahaayey lagu soo celiyo jidkii saxda ahayd oo dariiqii lagu soo celiyo. waxaan dhihi lahaa marka inay labadaasi culimmada iyo madaxdu iskaashadaan waa laasim iyo nidaamyada dhisan. laakiin waxaa arrintaasi furo u ah laga maarmaanna u ah in nidaamyada jira iyo dowladaha jira iyo muxuu ahaay wixii nidaamay dhisan ay marka hore ilaahay sharcigiisa ka run sheegaan oo nidaamyada kale iyo waxyaalaha kale diinta ka hor imaanaya meesha laga saaro, oo ummaddan caqiiday leedahay oo diin bay leedahay oo ay ku dhalatay oo ay isku guursatay oo ay ku kortay oo ay rumaysan tahay. diintaana nidaam u dhaama ma jiro in midda iyadaa lagu saleeyo wixii iyadaasaana runtii maslaxad iyo danta ku jirta oo noloshooda ku jirta adduuniya akharaba. sidaasaan isleeyahay inay furo u noqon karto qodobka asaasiga wixii iskaashiga dhex mari kara nidaamyada dhisan iyo culimmada. kaasi waxaa sheekh maxamed umal oo ka hadlayey siday wada shaqayn lahaayeen culamaa udiinka Soomaaliyeed iyo dowladdu si loo helo dowlad waarta oo nabad iyo wanaag ku waarta, iyo weliba sidii mujtamaca Soomaaliyeed qayb qaadan lahaayeen. interviewga sheekh Umar aanu la yeelanay wuu dheeryahay. qaybta dambe wuxuu kaga hadlayaa waxa uu arko xalka ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto iyo sidii loogaga bixi lahaa dhibaatada iyo qaharka. qaybaheena dambe ayaad ku daawan doontaan.
waxaan jeclahay markaan inaan ku wareejiyo waryaheena maxamed muuse oo asagu jooga dalka South Africa deeq darajo oo laba interview oo kala duwan asaguna noo soo diray lana hadlay culimada Soomaaliyeed oo halka ku sugan barnaamijkaanu ma aha mid al-shabaab lagu weerarayo ama dawlad lagu weerarayo waa mid TV-ga Universal uu doonayay in xal uu u raadsho oo xalka ummadda Soomaaliyeed kaga qayb qaato maadaama aanu nahay warbaahinta weyn ee ummadda Soomaaliyeed sida weyn ay u daawato mas'uuliyad buu TV-gu iska saaray inuu u istaago ummadda Soomaaliyeed xalkeeda wanaageeda horumarkeeda iyo nabadeedaba hadaba deeq darajo aan ku duwo markaan